waxay jecel yihiin saa u aragtiin sex saddex meel uu ka haystaa brainkooda uu kaga jiraa waxa sexku waxa waaye waa galmada hadday tahay galmo labada qof bini'aadamka ilaahay maxaa jira xalaal iska karigi way isku galmoonayaan naagtu waxay leedahay rabid ninkana rabid uu leeyahay saa ogsoonahay naagta rabideeda ninka rabideeda ninka waxa la yiri rabidiisa soo hormarto tan naagta dambayso taas waxay keentaa dumarka inay maxaa jira ku abuurto depression murugo ma sheegan karto ma dhigi karto aniga waxaan jira rabideeda taada soo hormarto tiyada dambayso waxa ka dambeeya 15 daqiiqo ii fuli ma dhigi karaa way nagu adag tahay haddana xalaal hadii tahay ka waraad wixii xalaashan ka cabsan waxa soo kale maxaa lagu sameeyaa ya rabidiisa markay soo hormarto waxa loo baahan yahay ninka inuu fahmo awish inay barnaamijkan nimankan ay maanta naga soo meeshan joogi lahaayeen fahmi lahaayeen rabideeda waxa waaye waxay ka dambaysaa la yiri 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay gaarto rabideeda hadii ay gaari wayso waxa imaanayo depression murugo ugu horeyn ka mid noqo saaxiibadeen oo nagu soo biir midda kale waxaan rabnaa guryaha Soomaalida inaan dhisno Soomaalidaan nahay guryaha Soomaalida waxay u badan yihiin inay dadka isqabayna isfuraan ama waxay u badan yihiin dadkii wada noolaa inay farxad ay haysan maalooba madaxa laga qabta naagtii ninka meeshan uu ka calaalaayo dadkii wada noolaa oo Ilaahay yiri Ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay liyas markii labada qof is aroostaan liyaskuunu Ilaahay ina ku deganaansho iyo xasilooni inay ku heshiin midda kale waxa waaye wax jacayl kale u baahan yahay waxa waaye affectionate love waxa waaye labada qof oo badan isheeg oo isqabo uu ka dhaxdhacaa in yaani jacaylka uu qof ninkeeda uu qabo uu dareensiyo through touching ama haduu inuu taabto inuu shumiyo waxa soo kale waxa soo dhan waa ka xishoona anaga dhaqankeena oo diidayo waxa u qabnaa ceeb inay ceebta xagga joogtaa laba qof isqaba hadii shumiyaan ilaa waxaan sheegay labadan qof xalaal uu suugu talagalay haduu xaaska ninkeeda shumiso mise ninka uu xaaska shumiyo maxaa dhib ku jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu maadan nin mar carabi ah oo baalka sheegay rabaadiya markaas wuxuu ku yiri ma aqaan ilmihiisa ma aqaan wuxuu yiri waligeey ma dhunkan uu yiri ilmihiisa mid kamid ah ma dhunkan wuxuu yiri nabiga kan xariista wax yara ka maqan uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tagay intuu qabto xasan iyo xuseen ilmuhu uu yahay uu shumin jiray uu xambaari jiray jacaylka noocaas ah oo maxaa sheegay taabashada ah shumiska ah waa xalaal ah waa la isqabaa dadkan dad ilaahay isku xalaal iska dhiga waxaan ka hadlaynaa dad banaanka ma aha dad aan isqabin ma aha taas waa xaraan dadka isqabaan ka hadlaynaa hadii jacaylka noocaas uu ka maqan yahay waa is ogtihiin dadka inta la qabo waxa loo baahan yahay open inay ahaatid ninkaada waxana u gudbin kartid fariinta inta aan sheegayo in kamid inta ku dirtid xataa na u sheegi kartaa loo baahan yahay jacaylka nooca kale waxa waaye partial love waxa waaye jacaylka dhaxmaro bahalka sheegay ninkii naagtis qabo hadday tahay galmo labada qof bini'aadamka ilaahay maxaa jira xalaal iska karigi way isku galmoonayaan ilmaha meesha laga abuuraa la rabaa waxyaalahaas oo dhan taasoo kale ma aha in la isku tago maxaa jira sida ninka ku helo ma aha waxa loo baahan yahay xuduud ay leedahay naagtu waxay leedahay rabid ninkana rabid uu leeyahay saa ogsoonahay naagta rabideeda ninka waxa la yiri rabidiisa soo hormarto tan naagta dambayso taas waxay keentaa dumarka inay maxaa jira ku abuurto depression murugo ma sheegan karto ma dhigi karto aniga waxaan jira rabideeda taada soo hormarto tiyada dambayso waxa ka dambeeya 15 daqiiqo ii fuli ma dhigi karaa way nagu adag tahay haddana xalaal hadii tahay ka waraad wixii xalaashan ka cabsan waxa soo kale maxaa lagu sameeyaa ya rabidiisa markay soo hormarto waxa loo baahan yahay ninka inuu fahmo awish inay barnaamijkan nimankan ay maanta naga soo meeshan joogi lahaayeen fahmi lahaayeen rabideeda waxa waaye waxay ka dambaysaa la yiri 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay gaarto rabideeda hadii ay gaari wayso waxa imaanayo depression murugo yaa ku dhacaysa murugada ilmihi yaa maxaa jira dhibka keensaday ninkii yaa dhibkii maxaa jira lagu la dhacay ilmihi koob jabis cuniga hala dilo ay waa taagantahay waxaas dhan maxay ka imaatay hadday jacaylka noocaas ee buuxo ee heli lahayd waxa laga yaabaa ilmaheeda inay naxariis u dareemi lahayd waxa laga yaabaa ilmihi maxaa jira dilka ay ku dilayso iyo xanaaq ay kula dhacayso inaysan kula dhici lahayn love ka noocaas lagu jira recreational love waxa waaye ina activities la sameeyo in la isla ordo iyadoo la maxaa jira meel oo privacy ah guriga kamid ah ama in maxaa jira ninkii naagtis qabo ay isla qubaystaan swimming poolka nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haduu nabiga waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haday wax xun ay tahay taariikhda lagu madar lahayn ahadiista lagu madar lahayn maxaa loogu daray in anaga ku cibra qaadano aan dabaqno waxa loo baahan yahay anaga maxaa jira nabiga muxuu sameyn jiray aasmaysiina loo baahan yahay maxaa jira maybe inay jiraan waa laga yaabaa laakiin inaag Soomaali ah oo wada cayaarayo ordaayo qaliil ma jiraan way yarihiin haday jiraan maxaa jira waa dad yar farkuturisa
jaceylka noocaas ah xiriirka labada qof ninka naagta ka dhaxayso wuu dhisaa wuu adkeeyaa waxa jaceylka noocaas ah waay love aan ka gudubno naagta maxay kala jeceshahay talk hadalka waa hadal badan tihiin hadalka way jecel yihiin waxay soo dareemaan inay maxaa jeceshay gudbiyaan ma sugi kartaan haddii jidka wax ku saarto waxay jeceshay inay sheegto haddii maxaa jecel laba shimbir isdagaalaysa aragto inay tiraahdo laba shimbir ha isdagaalay micnihi ma waxyaalahaas maxaa jeceshay camal inay dhahaan ma aha laakiin tooga waxa waay waxay jecel yihiin hadal badi waxay jecel yihiin waxyaalahooda maxaa jeceshay inay ka hadlaan dhibkooda waxay jecel yihiin inay maxaa jeceshay ay hadlaan ay rabaan naagaha dumarka nimanka walaalaheena ilaahay u naxariisto waxyaalahaas kale ayaga maxaa jeceshay dhibay ku tahay hadal badan ma rabaan waxay u badan yihiin action inay wax ficil sameeyaan hadalka ayaga maxaa waaye uu ku adag yahay inayna waxa loo baahan yahay hadalkiina daaragteen inuu badan yahay xad wax kasta xad ay leeyihiin cadaanka maxay dhahaan wax kasta hadii xad kasta dhaafo muxuu noqdaa poison toxic wuxuu noqdaa sun xadkina ka baxdin lama baana for example ninkaada wuu xanuunsanaa maanta uu shaqeynayay gurigu imaaday hadal muu baahan yahay wuxuu baahan yahay baxnaani wuxuu baahan yahay in la kolkoliyo wuxuu baahan yahay wuxuu rabo in la siiyo hadaa aad tiraahdo kabar maanta dhan waa iga maqnayd wixii maanta aan arkay iyo wixii aan dareemay iyo wixii aan uriyay aan ku sheegay kabar dhibay leedahay waxa loo baahan yahay wax kasta in la balance gareeyo waxyaalaha balance loo baahan yahay inagana waxa loo baahan yahay waxyaalaha jeceshiin inay balance gareyn kartiin waxay kala jeceshahay shoes kaba waay kabaha micnaheedu kama aha kaba kaliya inay jeceshahay dumarku waxay jecel yihiin dharka camal shoppingka shoes waxa laga soo qaato shoppingka dharka ay jecel yihiin no wonder loo dhaho naagaha nimanka maxay u gursadaan lacag ya hoos waxay rabtaa qamaarkeeda kabii u eg inay hesho nin faqiira ma laga helaa that's why naagaha Soomaalida maxaa jira naagaha kale adduunka weynaha ay ugu ordaan nimanka lacagta leh hadda maxaa maqlay sheeko Hollywood ka meeshan hadda filmada lagu dhiga cadaanka waxa helaysaa nin farxuma badan inaagti qurux badan way israaceen way isguursadeen waxa lagu leeyahay iska helnay waxa laga yaabaa inay waxay rabtay waxay jeclaad inuu siiyo uu fulfil gareeyay laakiin nimanka ayaga waxa laga yaabaa waxyaalaha qofka ay ku raacay waxyaalaha nooc kale ka duwan inay noqoto صح shoes ka kaas ku imaanaya jaceelka lacagta in la jecel yahay dharka iyo waxa siiyo waxa ku soo haray they also love security amni inay amni helaan meel amni inay ku nool yihiin cause dumarka waxa waay sentimental waay waxyaalaha oo maxay shucuurtooda dhaawac u geysanayo ma adkaysan karaan waxay u baahan yihiin inay amni helaan amnigaas dumarku way jecel yihiin ragga inay ogaadaan loo baahan yahay ragga ma hayna maxay sheegay markay arkaan xaaskooda yurka cararayso ina dhahan waxa fuliida maxaa waay no it's in them fulinimada iyo amnigaas inay helaan waa wax ku jira ayaga waxay kala jecel yihiin also babies ma jeceshiin you know it's natural dumarka xataa maxaa la jiray mid aan dhalin oo shukaan saxta aan gaarin waxa laga yaabaa inay cunug yarkay ay aragto diriskeeda ay soo qaado xambaarto kolkoliso chocolate usoo gudo wax siisiiso qoys waxa wax ku jira waa ilmiye jecel yihiin taas also respect in la xishmeeyo xishmada ma jeceshiin dadka ma xishmeeyeen iniga you know meesha respect waxa waa like waa wax adag waay respect daarto inaad ka heshid ninkaada waxa waa inaad isaga xishmaysid waay xishmada marka adiga xishmaysid waa heli kartaa wax kasta oo adiga adduunyada lagu hada imaanay uu ku keenay adaa xishmaysid adaa rabtid inaad xishmo ka heshid waa inaad xishmaysaa inaad xishmada adiga ka bilaawataa waay saa u heshid xishmo okay dumarka halkaas uga baxnay ragii u maarnay ma aragtaan nimanka you see aan ka bilaabo food cuntada aan ka bilaabo you know it's like waa maxaa jira sheeg Soomaalida halta dumarka Soomaalida nimanka Soomaalida badan waxay ka helaan horta waa waxay ku rooyeen waxa Soomaalida ka heshiin waxa waaye ay ka helaan cuntada way ka helaan cause waxa arkaysa guriga Soomaalida waxa la kariyo dhari weyn hilib weyn inta badan yaa la siiyaa aabaha ya waxa laga yaabaa hooyada miskiinta ah waxa laga yaabaa iyadoo umul ah inay iska qadiso waxa nafaqadaas jirkeeda galay ay siiso loo dhigo aabihi ilmihi xataa sometimes ma cunaya waxa leeyahay garabka aabaale oo food marka food ka halkaas hadii ragga Soomaalida waxaan dhihi karaa 90% way ka helaan rabidooda cuntada ay jecel yihiin dadka dumarka Soomaalida way ka helaan waxa ku soo haray biya waxa waaye hadda dadkan Soomaalida daan biya badan oo khamro iyo cabaan uma badna laakiin se waxa waaye waqtigood waxay ku dhumiyaan let's say qaarkood waxay cunaan qaad qaarkood waxay cunaan sigaar qaarkood waxay aadaan fadhi ku dirayaasha nimankiina markay fadhi ku durka aadaan hawada gaalinina oo waxay rabaan rabidooda waa hadda qof la yiraahdo gabar waxa rabtid ka tanaazul ma yeelay dhacaysa
dagaal waxa imaanaya conflict waxa loo baahay laakiin sina nimankiina la hadashana tiraadiin fadhi ku dararkada ku ogolahay laakiin 2 saacadood ku ogolahay ma 3 saacadood you set your own tradition dhaqankiina waa inaad sameystiin gooni ah oo iyaga gooni ah صح waxay jecel yihiin saa u aragtiin sex 3 meel ka haysta brainkooda uu kaga jira waa 3 meelood ma aragtaan waa koow 2 3 waxa sex waxa waaye waa galmada ragga waxaan sheegay dumarka waxa la yiraahdaa rabidda halka dhinacaas ah way kaga badan yihiin meeshana waxa ka imaato conflict dagaal badan ka imaado lisma fahmaayo ninkii waxaan uu rabaa wax ilaahay ku abuuray qofta dumarka maxay rabtaa in la fadhiisto la kolkolin iyo qof maxaa sheegay xanuunsan miskeenaya oo wax rabo no isma keenaysa meesha maxaa ka baxaayo kolkolintii cause qofkan is hot yani is like hormones kiisa maxaa sheegay awadana ka cinayaan hadii meesha maxaa sheegay oo bahalkii qofta dumarka ay tiraahdo markuu ninka rag wuxuu u baahnaa ay tiraahdo ma helisid saan ismay list ay u keento ka waran ma la fahmaya waxa just in harmony waxa lagu noolaan karaa labada qof yani ugu wada noolaan karaan listiga soo qoro listigiisa soo qorto kayga ii fuli kaadaan ku fulina waa isku wadeena صح okay TV وكلام يستفيد فوتبول فوتبول كو جعليهين بنونيكا يعني way ku waleeyeen aad ugu waleeyeen qaar hada waxa arkaysa maxaa sometimes hata iman waxa arkaa ayagoo guriga TV yaalo oo maxaa sheegay rabaan inay banooni daawadaan gurigii maxaa ma rabaan waxay aadayaan meelaha TV-da lagu daawado ay ku badan yihiin cause farxadooda iyo maxaa sheegay waxay ka helaan energy waxa waaye inay isku meel wax ku wada fiirsadaan ee wada qeylqeyliyaan you see ay helaan bahalka sheeg maxaa lahaa that kind of ay helaan so hadii football ay tahay maxaa sheegay wax uu jecel yahay aad ogtahay ninkaada inuu ku waalan yahay no hakirtiisas garan cambaareen oo wax ku jiro maskaxdiisa jecel yahay waa bini aadan waaye wax uu jeclaan karaa waxa sameyn kartiin laakiin hadii aad aragtid inuu football ka sheeg waqti u sameeyaa haduu waqtiga ka bato waxa sameeysaa halla if you can beat them join them hada ka reeyn weys maxaa sameeyaa waa lagu darsamaa ما أنتم ملك لك أدي لها وكعر لها قيلة هذا إيش حتى إماتي بنونا يقول فرستي مانشستر إيه فرسالة أنت أدي له سودا وين شاح وكان بي وكان لا فرسو محاربة كجرو أنتم ملك لك أدي لها ومرنا لك أدي لها محاكسو كلام في عين يقولوا هذا بنونا يقول فرسو أدينا ألا فرستي صح وحلا بهنا درينا يجنا وحي ربي وحي جعله هنا وقالنا له بهني مدة كانت TV inay fiirsadaan ee programme ay ka fiirsadaan way jeceliin also taasoo kale waxa loo baahan yahay in ogaano balance gareeno jaceelka maskaxda waxay ku kala duwan yihiin halkaas ku soo koobaya then at the same time maxaa la midaan aan rabaa inaan kala cadeeyo waa aragteen hadda maxaa sheeg dadkan hadda oo maxaa la humanistic whatever feminist waxay dhahaan dadka u dagaaltama xuquuqda dumarka waxay dhahaan what a man can do a woman can do waxay naag sameyn karto nin uu sameyn karaa taasoo kale waxa loo baahan yahay inaad ka faajignaasdiin cause qofkan ragga ah ilaahay wuxuu u abuuray si ah dumarka waxa loo abuuray si gooni ah haddii aan ka war wax kasto ninka uu sameeynayo because what a man can do a woman can do waa sameeyna ka waran lama baan waxa loo baahan yahay ogaatiin ragga inay ilaahay si gooni u sameeyay nooca dumarkan ilaahay wuxuu sameeyay noocaas difference u dhaxeeya ma micnaheeda inay superior ay yihiin ay niga sareeyaan sax bad waxa la rabaa inaad differences ka kala ogaatiin fahantiin midda kale maxaa la sheegay waa ogtihiin هذا دي عنده كورن ناك بايلوت ما جرتها بدنا ويري you know when I say محل ما جرتها I'm like I'm targeting majority وحي وبديهين ناك أو ديارات وذيسو ويري هذا يري هنا وحاكو وحواي فكر كلا قلنا دعسية بس passion كلا راعي دهين وحي لينك سمين كراس سمين كرا قفك بيانك يعني passion كسو راعي كرا لكن majority كان كهلنا وحيلا واحد جت الرجع يكون في عينهين دمر كيس يكون في عنان رجع واحد جت واحد دمر يكون في عينهين دمر كنه رجع يكون حيهين waxa la baahan in la wada fahmo fiilkooda in loo daayo way ku fiican yihiin aan lagu la dhihin maxaa sheeg wuxuu nin sameyn kara dumarkana sameyn kara shaatiga intii la qabsado ma aha waxa ilaahay abuuray waay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum nimanka maxay kaga horeeyaan ragga wuxuu ilaahay ku fadilay dalik fadlullahi yutihi man yasha wa fadli ilaahay cidda doono uu siiya waxay naga fiicanaa jirto anaga waxa uga fiicanaa jirto waxa uga fiicanaa for example communication ku uga fiicanaa wada xiriirka hadalka wada xiriirka hadalka waxa waaye qofta maxaa sheegaan dibkeed inay sheegan karto haday xanaaqsantahay inay wax xanaaqsanahay that kind of communication nimanka ayaga ma laha waxaas waxay u arkaan waxaas weakness ay u arkaan nin dhahay maaragtay sheegaan aniga waxaan dareemayaa oo madaxa xanuunay no madaxa aan isticmaalin kind of what can I use nimanka isticmaalin
دمر كان آدم جعليه نهان حناقة عمل هذا مركي كارين كنا كارين نت emotions شعوره وحي كسر دعوه هديت هاي جعل هديت هاي حناق أيادي محرج شيء حلقة بين الشيء ترى هذا صانع هدي حتى أفكك شيء إنه حلقة بقى فعل وحي ربط فعل موجنا إنه يسميه هدي حنا قصنته كبس وقاد سوماليد بدنا uma badnin inay qofta xaaska ninkeeda ku tiraahdo waxaan waa dhibsanayaa waa iga xanaajiya iga dhaaf way yartahay dumarka sameeyanayo soo communication u fiican yahay way yari laakiin maxay sameeyaan ficilkay sameeyaan koobkay jabiyaan ha cunto maalin isla ma karinay sax maxay tusinaysaa xanaaqeeda ay ku muujinaysaa raggi sidoo kale ma aha waxa la baahan yahay inaan saas u fahanno waxa la baahan inaan dhisno basiga guriga inaan dhisno loo baahan yahay dhaqanka maxaa jira Soomaalida oo dhahayo wixii xaq ka xishooda gadaal iska dhiga waxa anaga dadka ugu horeeyna u nahay meel aan u gaari weyn waxa waay dhaqankii wadaha u haysanaa kor waxaan kana dad islaana jilbaabada waa qabnaa qamiisada waa qabnaa laakiin ma internalize garna diinteena ma ku dhaqanno waxa loo baahan yahay waxa sina gooni iska dhigno diinteena waxa loo baahan yahay inaan ku dhaqaaqno islaam marka adeys islaam ahay I'm proud of it waan ku farxaa islaam laakiin dadka islaamka ku dhaqmin ka waran qofta dumarka waxa looga baahan yahay gurigeeda qof hagaajin wisma xaqiiq la hagaajinay hadhow wixii warshada soo saaraysa waxa waay dad kale wixii ku korinaysa waa wadnaheeda sidoo kale sidii dhaqankii ahaa waxa loo baahan yahay dhaqankiina gooni iska dhigno wixii diinteena ay leedahay aan soo hormarino insha Allah wana maadsantiin wixii su'aal qabo qofka hadda balwad leeyahay aan rabin si uga gooynay miskiga deynay kay marka waxaan leeyahay just wixii qofku rabo u yeel maaha micnaheedu maxaa jira sheekeen waxa rabnaa anaga waxa daraadina waxa way solution waa xalka muxuu ku iman karaa waxa loo baahan yahay in la isku tanaasulo adiga waxa rabtaa baahiya leedahay waxa rabtaa kaba in lagu soo gado waxa rabtaa maxaa jira sheekeen gaari lagu soo gado wixii dhan uu ku yeelaya sax uu ku tanaasulo waxa laga yaabaa lacagtaas inuu saraali ka ahayn ولكن كسيي كما سأوجدت وكسيي سامح حد شيء واحد 10 بدأ وكوب بحي هذين وحلو بهينا أتنازل شو حيلا قاركيس درتيس أو تنازل شد كوز واحد هيدا ولا نولاتين هذه اسكو تنازل يقف كل وحي ربع فرحت قلنين مي ما أنا يحل حلك وحي كجرا إلا اسكو تنازلوا وحس نعبتها وحلقة نعبيهين نعب كرت وحوا مسكحوا حليري سواح وجلستوا برنامج كشبت دواي نعب كي جعلك أنا كشوب كرنا هذا أترى واحد أنا جعلان لكن نينكي وقفك الدنيا كل واحد بدن واي وحال النبي صلى الله عليه وسلم نينكا ناقته نينكا محوي هي جنة نارته هذا نينكا أورا لا نقطة واحد كسور بقى اسمه جنة كتجسا هذا وحي ربنا محرج شيء أكون نقطة عاصنة ما كتجسا نارته وحيلا أسمين سوحة واي you should be proud of it وأنا ما حد قرأ قادا وأنا ترى هذا وحن أنا محرج شيء ناها كلام سميان أنا لك واسمي نينكي تنازلي قالوا به تنازل كسواي solution كاكس كجرا إنه سكوت تنازلوا ninkaaga hadduu jaad cuno ama qamra caba oo bad u leeyahay ku soo boodi meesha hal mar ma fahamtay jaada cuntay saanad yeeshay xagaa tuu bis laga ma rabo xal baa raadinaysaa adoo raali wixii ooga ah waa dhakhtar la kaashanaysaa waxa leedahay waxaan danku ma aha caafimaadku ku xun ama dhibkaana jira habkee baan uga hortagi karnaa adoo deganaansho muujinaya iman hadduu adkay maalmaha hore tartiib adoo hadda isdajisid tartiib wax kasta oo goyn karta laakiin hadaa qayliso maalin kasta waa xaalada la soo xumaanaysa qofkan balwada ku ordaayn waa qof jirin maskaxda taas gali aad horta balwada iskama aado qofka waxa ku kalifay waxba ku cararaya ninka balwada iskama cunaayo balwada haduu sigaar cab waxba ku soo xula soo maray si loo soo koriyo taqaanid dib ku soo dhacay warkama heesid inaad tiraahdo war balwada dhibta maxaa kugu dhacay aad maxaa balwada u yeelatay inaad ogaatid dhibaatada u keentay qof kasta balwada iskama rabo qof rabo ma jira inuu halaabo qof rabo male dhibaato u geysata dadkii oo halaabay dhibaato ku dhacday dhibaatada inaad ogaato kadib tartiib wixii aad dhakhtar la kaashto aad xalisaan laakiin aad ku soo boodin hal mar ama qaylo shidin maalin kasta iyo buuq daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid